maanta waxaan isugu yeedhay inaan kelmado kooban ka idhaahdo mawduuca maalmahan Somaliland gaar ahaan guud ahaan dunida oo dhan lagu mashquulay ee ka hadlaya jaamacadda hablaha ee Barwaaqo iyo dugsiga Abaarso waqti badan ku qaadan maayo ka waalid ahaan aniga iyo waalidiinta kale iyo ardayda iyo dadka ehelka u ah ardayda Barwaaqo iyo Abaarso aad bay noo dhibaysaa meel ka dhac bay nagu tahay in maalin walba dadaan mas'uul ahayn oo aqoon yar oo ujeedooyin kala gedisan iyo ajandayaal wata ay caruurtayada iyo hablahayaga iyo caarkayaga warbaahinta kala gedisan ee dunida meel walba ay soo dhigaan iyagoo ka sheegaya waxyaabo fool xun oo afka la soo marin karin oo qof xishood iyo dhaqan leh aan ku hadli karin marka run loo hadlo maanta dawlad bay nahay qofka sharaftiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa waxa damaanad qaado ilaalinaya shuruucda dalka iyo qawaaniinta dawlad bay leedahay wixii ka horeeyay dawladnimada dadka noocaas oo kala ah xabad baa lagu dhufan jiray ee caarka iyo dumarka iyo caruurta waxaan dhaqankeenu fasixi karin oonu sheegi karin oon afka la soo marin karin u quuraya ee markuu waayay sharci adag oo ka qabta iyo dawlad iyo hay'adaha dawladdu inay fuliyaan shuruucdaasi ka gaabiyay waxay fasaxaysaa in gacanta la iskula tago